daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta siyaasadaha caalamka maantana waxaanu mar kale eegaynaa hogaamiyihii kooxda wax iska cabinta ee reer Lubnaan oo la ogaaday in heshiis xabad joojin ah uu diyaar u ahaa isla markaana uu aqbalay in Xisbullah iyo Israa'iil ay wada gaaraan ka hor inta aysan Israa'iil ku duqeynin magaalada Beirut waxaynu eegi doonaa warkaasi weyn oo soo baxay iyo safiir kamid ah kuwa dawladda Lubnaan u fadhiya dalalka reer galbeedka oo si rasmi ah xogtaasi daaha uga qaaday waxaynu kaloo falanqeyn ku sameyn doonaa caasimadda Lubnaan ee Beirut ayaa qaraxyo waaweyn xalay ay ka dhaceen saaka xaaladdu siday ahayd ayaanu eegi doonaa iyo macluumaadkii ugu dambeeyay duulaanka dhulka ah ee Israa'iil ee xadka Lubnaan iyo sidoo kale Israa'iil bal marka hore aynu ku bilowno safiirka dalka Lubnaan u jooga wadanka Ingiriiska ayaa waxa uu bixiyay waraysi uu siiyay telefishinka Sky News liiraahdo waxaana markii ugu horeysay uu si rasmi ah u faahfaahiyay in hogaamiyihii kooxda wax iska caabinta ee reer Lubnaan Hassan Nasrullah uu ogolaa xabad joojin isla markaana uu ogolaaday 3 toddobaad ka hor inta aynu Israa'iil aysan ku shirqoolin duqeyn ka dhacday magaalada Beirut ee caasimadda wadanka Lubnaan safiirkan waxa uu shaaca ka qaaday isla markaana uu si rasmi ah u faahfaahiyay in arimahaasi ay meesha ka saarayaan in heshiis dambe iyo is-aaminaad dambe oo ku saabsan xaaladda gobolka ay dhacdo waxa uu sheegay in soo jeedintaasi ay ka timid Mareykanka iyo Faransiiska isla markaana Ingiriiska iyo kuwa kale oo reer galbeedka ah ay aad u daneynayeen in heshiiskaasi uu dhaqan galo laakiin Israa'iil ayaa daba martay oo duqeyn ku dishay waraysi uu axadii uu bixiyay ayaa waxa uu sheegay in wararka ku aadan in Nasrullah uu heshiiskaasi uu rabay isla markaana uu aqbalay 3 toddobaad ka hor ay dhab tahay ayna xaqiijinayaan laakiin nasiib wanaag waa la shirqoolay waxayna u badan tahay buu yiri in shirqoolkaasi uu ama aqbalaadaasi ay u keentay in la dilo Hassan Nasrullah dhinaca kale magaalada Beirut ee caasimadda wadanka Lubnaan ayaa xalay qaraxyo waaweyn laga maqlay diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeeyay dhowr goobood oo caasimaddaasi ka tirsan saaka waxaa la soo sheegayay qaraxyo kale waxaana weli xuduudda Israa'iil iyo Lubnaan ka socda dagaalada foolka ah ee dhexmaraya labada dhinac inkasta oo Israa'iil uu qasaaro xooggan uu ka soo gaarayo ilaa 20 ka mid ah askarta ayaa toddobaadkii la soo dhaafay Israa'iil kaga geeriyooday wana qasaarihii ugu badnaa oo Israa'iil ay wajahayso maadaama toddobaadka soo socda ay ku beegan tahay hal sano guuridii ka soo wareegatay weerarkii 7 Oktoobar ee kooxda reer Falastiin ay ku qaadeen Israa'iil ayaa waxa cabsi xooggan ay qabaan Israa'iiliintu waxayna ka cabsi qabaan in weeraro waaweyn oo abaabulan ay kooxdan ay ka geystaan Israa'iil waa cabsi dhab ah runtii dawladda Israa'iil waxa ay sheegtay in ay ka feejigan tahay weeraradaasi laakiin falanqayaasha arimaha ku aadan labadan dhinac ayaa waxay sheegayaan in nooca weerarkan uu noqon doono in aad looga falcelinayo isla markaana looga cabsi qabo weeraradan waxay noqon doonaan sida xubno ku dhow kooxdan ay sheegeen kuwa ka culus isla markaana ka xajmi weyn marka loo fiiriyo kii dhacay sanad ka hor 7 Oktoobar waxa Israa'iil ay kordhisay amniga isla markaana waxa ay keentay ciidamo dheeraad ah xadka xitaa daanta galbeed iyo Gaza waxay ka bilowday in diyaaradaha drone-ka kiligooda iska xeeya inay hawada u dirtay isla markaana waxa ay aad ugu dhex jirtaa sirdoonka Mareykanka Ingiriiska Faransiiska Denmark Spain iyo dawladaha waaweyn ayay la kaashanaysa ama ay sheegtay inay la kaashanayso amniga inkastoo Spain iyo Ireland iyo dawlado kale ay horey u sheegeen in Israa'iil waxa ay ka sameynayso Gaza iyo dhulka reer Falastiin ay tahay wax ka baxsan xuquuqda aadanaha isla markaana ay sheegeen in heshiis diblomaasiyadeed ay si rasmi ah ay dhawaan ula gali doonaan dawladda reer Falastiin oo madax bannaanida Falastiin lagu taageerayo
Israel markan daanta galbeed iyo warbixinadii ugu dambeeyay inuu eegno iyo Gaza duqeymihii Israel ayaa wali halka ka socda waxa saaka la sheegayaa in qaar kamid ah xarumaha dadka rayidka ah ay duqeeyeen Israel xitaa kooxdan Hamas ayaa waxa ay sheegeen in 24 qof la dilay 93 kalena la dhaawacay kadib markii Israel duqeymo xoogan ay ka geysteen goob iskuul ah iyo goob caruurta barakacayaasha ay ku noolaayeen oo Gaza ku taala sidaas isla mid ah qaraxyadii waaweynaa ee daafaha Beirut laga maqlay xalay iyaguna qasaaro waaweyn ayay geysteen oo waxa la sheegayaa 10 qof inay ku geeriyoodeen Israel waxa ay jirtay korontada wadooyinka gala ee xuduudda Lubnaan sidoo kale waxa laga soo xiganayaa wasaaradda gaadiidka ee wadanka Lubnaan in ay Israel diidan tahay dadka ka baxaya magaaladaasi ee xuduudda ku taala ee aadaya wadanka Suuriya iyo wadamada kale ee wadankaasi ay uga gudbayaan رئيس الوزراء إسرائيل waxa uu sheegay inuusan aqbali doonin in uusan ka jawaabin weerarkii madaafiicda ahaa ee Iran ee Israel wuxuu sheegay kuna andacoonaya in qasab ay tahay Israel inay ka jawaabto Israel waxay doonaysaa inay duqeyso xarumaha nuclearka ee dalka Iran taas oo dalalka waaweyn ee G20 ama G7 iyo Mareykanka ay aad uga soo horjeedaan laakiin Israel waxa looga bartay inaanay u joojin isla markaana aysan u istaagin baaqyada Mareykanka iyo sidoo kale wadamada G7 ama G iyo wadamada kale ee G20 la yiraahdo laakiin markan hadii Israel horeyna waa u sheegtay Iran hadii Israel ay mar dambe weerar ay ku soo qaado Iran Israel waxay diyaar u noqotay in dagaal toos ah oo rasmi ah ay bilowdo hadii Israelna duqeyntaas ay sameyso dabcan dagaalkii rasmiga ahaa ee labadaas dhinac ayaa bilaaban doona militariga Israel shalay waxay ku faaneen in 440 kamid ah xubnaha dagaalyahanada ee kooxda wax iska caabinta ee reer Lubnaan ay duqeeyeen laakiin warkaasi si rasmi ah looma xaqiijin maadaama Israel ay wararka ay boomboonanayso isla markaana kuwa aan jirin ay meesha ku darayso garabka militariga ee kooxdan fadhigoodu uu yahay Falastiin ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay ka argudan doonaan marka la gaaro sanad guurada koowaad oo toddobaadka dambe ku beegan 7 bisha Oktoobar waxa adduunka oo dhan aad looga hadlayaa noocee ayuu noqon doonaa jawaabta iyo sanad guurada koowaad ee weerarkii Israel ee Gaza iyo Falastiin waynu ka dhursigi doonaa fadlan daawadayaal macluumaadkan waa kuwii ugu waaweynaa ee hadda ka taagan caalamka si aad kuwa kale u hesho fadlan subscribe saaro oo la soco channelkeena